السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب سورة هذا عشر كان وحواي عشر عن وتلقى لي هدي بزنس هذا كان كاد بزنس مانجر كاد قفكي مركز لشقيني ساد اسكسو درويسيد إن اسكو كرتيد مركي اسكسو درتيد وكله كبسوقات بيج كده وكله مركا اسكو دريسيد وكله واحد يسا سيتنجسا كدبنا واحد يسا بيج رولز markaad tagtid meeshaas ayaa iskaga soo diraysaa page rulska xagan ayaa markaas waxaa dhahaysaa ku dar qof kale kadibna meesha ayaa iskaga soo diraysaa haddii aan ku tuso marka meesha oo aad account-ka oo customer-ka aad iskaga diri kartid adigoon isticmaalaynin qaybta oo business-ka haddii oo somehow oo business-ka markaas uu ku shaqey waayo ka hadlaa macnaha inaan ku sii rabaa qaab kale oo markaas aad account-ka adiga isku soo diri kartid so haddii aan ku laabano kale pages kadib aan tagno Jabron kadib aan tagno ads center-ka kadib all ads kadib waxaa dhahaysaa meeshaan ads manager oo macnaha waxaan ka hadlaa markii oo customer-ka business account aad u samey weyso oo macnaha inta u samey maagta aad u samey weysay oo somehow arabtid weli inaad la shaqaysid oo laakiin aad account-kooda oo personal-ka arabtid inaad isku dirtid markii aad account-ka oo personal-ka tagtid ayaa xogtaysaa xagan kadib waxaa leedahay account setting meeshaan ku dhufo kadib meeshaan ayaa iskaga soo diri kartaa so marka meeshaan ay maatid oo kale xagan ay ku qoran tahay add people oo kale aad tegaysaa so markaas magacaaga ayaa meeshaas ku qoraysaa so laakiinse waa inaad ogaataa in aad adiga iyo macaamilka aad markaas Facebook friends ka tihiin waayo oo for example Facebookiisa iyo Facebookkaaga inaad saaxiib camal aad tihiin waayo oo asiga ama kugu soo darsado ama aad isku dar kadib page-ka aad meeshaas kaga soo dirtid oo page rules aad tagtid isku dirtid haddana kadib markaas personal ad account-kiisa ayaad isku diri kartaa so haddii customer-kaaga la dhaho kale Maxamed Amira so qofkan oo kale hadda aniga waxaan isku nahay friends oo Facebook aan iskula jirnaa so qofkan oo kale so saas amal magacaaga meesha ku qor ama email-kaaga ku qor kadibna isku dar markaas oo confirm dheh kadib email ayaa ku soo dhacayo oo toos markaas ayaad business-kiisa meeshaas ka maamuli kartaa marka taasna la soco intaas ayaan rabay inaan macnaha ku soo daro oo haddii oo business account-ka oo customer-ka aad u samaysay oo ads manager-ka business manager-ka aad u samaysay uu shaqey waayo oo laakiin aad rabtid weli inaad wax u qabatid oo personal ad account-kooda aad rabtid inaad uga shaqaysid oo shaqada aad ugu qabatidna meeshaas ayaad ugu diri kartaa aad adiga waxaad ka noqon kartaa admin marka assalaamu calaykum waraxmatullahi